war-saxaafadeed ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee wadani oo nuqul ka mid ah uu soo gaadhay telefishinka bulsho ayaa waxa uu dhignaa sidan ujeedo magacaabis agaasimaha xarunta dhexe xisbiga wadani ku mudane cabdiraxmaan ibraahim cartan diiriye og dhammaan laamaha dibadda xisbiga wadani og dhammaan maamulka gobolka ee xisbiga wadani og gudida fulinta xisbiga wadani og xogayaha guud ee xisbiga wadani og hogaamiyaha xisbiga wadani og gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga wadani oo gudoomiyaha ku meelgaarka xisbiga wadani agaasimaha xarunta dhexe xisbiga wadani markii aan darisay qodobka 30aad farqadiisa 6aad ee xeerka xisbiga wadani markii aan tixgeliyay baahida loo qabo in la buuxiyo booskan markii aan la tashaday hoggaanka sare xisbiga wadani markii aan ku qancay kartidiisa iyo aqoontiisa iyo waayagnimadiisa waxaan maanta oo taariikhdu tahay 17ka Julaay 2021 aan u magacaabay mudane cabdiraxmaan ibraahim cartan diiriye inuu noqdo agaasimaha xarunta dhexe ee xisbiga wadani mudane waxaan ku rajaynayaa inaad ku soo kordhiso xisbiga wadani guud ahaan iyo gaar ahaanba xilka agaasimaha xarunta dhexe ee xisbiga wadani wax qabad muuqda iyo fikiro waxtar leh iyo wax ku ool leh adigoo adeegsanaya aqoontaada iyo waayagnimadaada iyo firfircoonidaada gaarka ayaa lagu yiri qoraalkani xilkani loo magacaabay agaasimaha xarunta dhexe xisbiga wadani ayaa hore waxa uu hayay jamaal aadan diiriye oo xildhibaan ka soo baxay gobolka Murudijeex Umar Ali Ducaale Umar Shabash telefishinka bulsho magaalada Hargeysa